رمضان الغالي أروانا فاعزف يا بلبل ألحانا لحنا بالبهجة يغمرنا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم. برنامجkan hadda aan insha Allah ka hadlayno waa barnaamij taxana ah oo Ramadaanka loogu talagalay oo barnaamijyo badan. Mawduuca hadda aan ka hadlaynana waa mawduuca al-infaq fi sabilillah, in wax la bixiyo oo dadka tabaaleysan, abaartu taabatay, dhibaataysan, xoolihii waxna ay ka fadhiyaan, waxna ka yaraadeen, in aynu u gurmano. anigu waxaan soo maray oo culimada deegaanka ka mid ah oo hadda nugaal jooga ayaamahan tuulooyin ama deegaano ayl iyo dangorayo sida qarxi, sida xaaji khayr, sida muxuu ahaayay ceelbu iyo nugaal qaybtooda damaan sii hore oo xagga bariga ah. dib weyn baa jidha, waana ogtihiin. waxaa la soo xoogaal badan dadka hadda uu gurmaday. hadda gurmad badan baa jira oo xagga dawladda ah, xagga culimada ah, xagga dad badan oo dibadaha wax ka soo warshay. waxaan leenahay jasaakum allahu khayra. laakiin hadda waxaan si fiican ugu baaqaynaa mawduuca kan in la xoojiyo gurmadka dadka iyo quudinta qoysaskii waxay ku afraan in la keeno. walaalayaal waa ogtihiin ilaahi subxaanahu wa tacaala qayb dhan dhaqaalaha muslim qofka soo gala muslimka ah qayb waxaa iska leh saka lagu magacaabay oo waxaa iska leh dad ba ilaahay u cayimay. inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin ila aakhir aaya. sadaqada waxay u sugnaatay si xasri ah koobida fuqarada iyo masaakiinta. faqiir waxaa la yidhahdaa qofaan waxba haysan. dad badan oo maanta dabka ka dami baa raga jooga. miskiinna qof wax haysa aysan ku filayn. marka maadaama halkaa diinteenu ay ku inoo dejisay qawaacid ah, saka bixintu maxay tahay? waa nooleyn in dadkii haystay xoolihiisa qayb qofka kale ku noolaado. ilahina wuxuu yidhi: waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiica. qofkii nooleeya naf sii dhiman lahayd wuxuu la mid qof dadkoo dhan nooleey. aayaddanu ku bilaabay ilahay wuxuu leeyahay waxay la mithaal yihiin kuwa wax bixiya, yani ajarka ay helayaan. haddaad joodhaa caagad saliida imir maanta qofkii dadku ku afuriya, ilaahay wuxuu u sheegay intaa uu bixiyey inay la mid noqonayso sidii xabad xubuuba ka mathali xabatin ambata 7 sanaabila, 7 sabuul hal xabo la beeray oo badar oo kala oo 7 sabuul oo fi kulli sabuula 100 xabba ay ku jiro. markii la isku dhifto 700 ayay noqonaysaa. sababta fiida ah isku dhafashada halkaas quraanku sheegay. nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku baaqayaa in la isku naxariisto. irhamu fil ardi yarhamkum fi samaa. raxmad baan u baahnaa Soomaha, roob soo baahnin. maanta hal la gurmado, meesha hal laga kaco. xoogii dawladda ay wada si xoojiso, ganacsatadu si xoojiso, culimadu muxaadaraadka iyo dadka la hadalka iyo dhaadhicinta iyo fadliga si xoojiyeen. gabdhuhu quradka dhagaha iyo silsiladaha maarta ay yani dahabkooda sameeyay nabiga waa bixin jiray sallallahu alayhi wasallam. waxa dhacday iidaha markii nabigu yiraahdo wax bixiya bilaal inuu u diri jiray oo markaa gabdhuhu ay dhagaha ku dari jireen. bilaal markuu dadka dhex maray safka oo xurinayo ay silsiladooda ku dari jireen. halkaas waxay ku tusaysaa in muxuu ahaayay gurmadka rag iyo dumar baa laga rabo. walaal maanta markii dib baa ka dhacday waxa weeye beer qoyan qallalan in la qooyo waa sadaqo. in muxuu ahaayay la isku naxariisto ilaahay baa ku naxariisanaya. in muxuu ahaayay يعني إنه حين الله بحنه إله بينه كبر كيناية. ورسولك عليه الله بقرآن كسوحه ليه وحي آب بحسانين إلهي هو إذين قوبنيا فهو يخلف هو وإذين يعني الصدقة لا يقص ما العدل بالصدقة حوله الصدقة كمان وسامان ولا يالو مش هكذا صادق إنك لا أي له قوب الله سبحانه وتعالى. وحنا مرلبات يمرسدحات كبورنينا وردل كنا مات هدين نقطة الصومالي عام خاصان بطلان
xoolihii maanta meel xun bay marayaan aad bar anigu socodna hadda ka imi maanta garow soo galay luma badan oo ariga madhay waxaan rabaa insha Allah waanu idinku baaqaynaa warka qaniimada ka faa'iideysta oo wax kasta oo yarba ha ahaade waxa la bixiyo masaajidada muxuu ahay yani sida xataa inuu ku dhisi jiray maartay aynu wadooyinka qaar markuu ku dhisi jiray waa isxilqaanka ahayd oo ardaydu xataa halka doolar hadda haday baxshaan ardada haday baxshaan askarta haday baxshaaneen hal door hadii qofku soo shaqaalahay uu soo tuuro wasaaraddu soo urushaan oo booliska ciidamada soo urushaan intaas oo ciidan baa inoo jooga hadii hal door soo tuuraan intaas oo arday baa inoo joogta hadii hal door soo tuuraan intaas oo jaamacad soo tuuraan hadii hal door soo tuuraaneen waxa weeye dadkeenu way inoo badbaadiyaa xoolihii maanta lagu haleyn maayo wax daaq lagu haleyn maayo waa ogtihiin haweenka muxuu ahaayay Zainab bint Jahash oo nabi geerida haweenka ugu dambeeyay sagaalkii haweenka nabi kaleey salaatu wasalaam يعني haweenka nabiga qoftii ugu horeysay baan leeyahay oo nabigu yiri waxa keen igu soo xig doonta geerida mid idinku gacan dheer oo halka kinaaya ay hayd oo marka gacantaas ay noqotay inuu Zainab bint Jahash aad u xubin jiray dumarku taahay ku daydeen raggu halka rag inay wax siiyay bangiyadu ha kaceen muassasadku ha sameeyeen hal loo gurmado dadka ramadaanka hal la afuriyo qofkii wax afuriya kana ajarkiisi waa leeyahay ajarna waa loo qoriyaa dadkeenu saas inuu ku badbaadiyaan waa ogtiin kacaankii siyaad barre inuu halka dadka qayb xeebta u dajiyay oo ku noolaadeen qayb inuu qaaday oo ku duwaar geeyay qayb inuu muxuu ahaa isaas oo kale waxaan ka rabnaa marka maanta xukuumadaha u fadhiya xamar doorasho iyo doorasho la'aan arrimahaas xogaa waxa weeye iyadoo hadda masaalixda ay ku jidho haddana waxaa la rabaa in ay arinta u soo jeestaan oo ka hormariyaan waxa loo baahida dadka ay ka hormariyaan inagu hadda madaxweynuhu maanta dagorey maray uu fasaxay madaxweyne Deni uu soo ku dhawaaqay gurmad biyo ku dhawaaqay halka waxa la rabaa in laga sii badiyo oo madaxweynaha xukuumadda federaalka iyo xukuumadda localka iyo xukuumadaha wilaayadka ahiba arinta in loo kaco Soomaaliya meel kasta arintaas aanu aad ugu boorinaynaa diinteenuna deeyadiiba hadaynu muslim nahay ma haynu dhiraahno hay'ad hebel iyo gaale hebel iyo muxuu ahaay Mareykan iyo xagga wali inaga ilaahay sakadina ku waajib yeelay inaga sadaqadeena fadliga ilaahay u yeelay inaga muxuu ahaay inaynu soo naxariisano leena ka rabaa inaga la rabaa muxuu ahaay inaynu yani soonkeena cibaado weeye waxa fikrada xigmada loo waajibiyaa fikrada oo loo bixiyaa waa inuu maartay yani gaajadii soonka la soo maray qof kasta qaniya waa soo aragtay faqiirka marka waa inaan ka farxisaa diinteenu marka wala tacaawunkaas ayay ku dhisan tahay anigu marka arinta iclaan baanu soo jeedinaynaa degdeg weey arintaas waxaan rabnaa inuu meel gaaro in loo kaco inta hadda wax bixisana khayr Allah siiyo inta sacyiga wada in badan oo hadda sacyiga wada oo shaqeynayso oo muxuu ahaay culimo laho dumar laho muxuu ahaay jaaliyadaha aad baan idinku mahadinaynaa meelahan hadda tagnay jaaliyadaha hadda tuulooyinkaas aanu tagnay ay iyo deegaanadaas iyo aan dangoroyo gurmadkiinu waa soo gaaray waxaan rajaynaynaa garow saas oo kale waxaan rabnaa saas oo kale gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobolku in iyaguna ay ka kacaan oo iyaguna ay migisyaniin waliba jaaliyaduhu ay aad iyo aad awalba idinka calmiska iyo meel walba ka qay wax ka soo diri jiray dadkii maanta warbixin badan inaad ka haysataan baa loo baahan yahay xoolihii waxay daaqaan ma haystaan xoolihii waxay daaqaan ma haystaan waa fadhiyaan waa ariga waxaan soo maray xoolo aan dareerin xoolihii waxay rabaan raashin loo gado calaf loo gado dadku kale noqdeen biyihii waxa laga doonayaa ceelasha dhuudo ayaa xoolo laga dhaaminaya ceelashii la yaqeen waa maartay waa duuran ay lukaas dhuudo iyo luka biyaha la ma meesha ma jiraan nugaal oo hadda wax yar baa maxuu ahay markii ilaahay waxaan ku soo intaas ku soo gabanayaa wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh روانا فاعزف يا بلبل ألحانا لحنا